Yeah, you think about money when you think about me, huh? That's why my ex, you don't wanna be her. She used to have a Beamer, now she on sneaker. I had her eating lobster, now she eating pizza. I think about Easter when I think about Keisha. Shorty stay fly, that's why I keep her. Brown like the reefer, brown Mona Lisa. She good if I leave her, she got her own visa. Think about them when you think about frontin'. Think about stunting when you think about me. I'm the boss, Bentley or the Porsche. Overseas, see jet skis slide across. I love the way you dress, now take it off. Put your legs high, on my shoulders of course. I'm racing through your mind, but you're already lost. I'm at the finish line, and you're a friend of mine. Come on, let's ride. Just a little bit every now and then. Goddamn, girl, we used to be friends. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. I think like a hustler, I'm thinking about a shipment. She thinking I'm her hustle, she thinking about commitment. It's like Paul McCartney stuck in my head. He fell in love with it, he walked away on one leg. She ain't even have to run to get away with the bread. That's some f***ed up shit. Think about that kid. I'm thinking what this thinking when she take me to court. I pay my child support, what the f*** she want? This relationship is too much for me. I wanna be friends and live comfortably. She wanna shine and blow minds on shopping sprees. She should have what she want, just not for me. I'm thinking about my future, she part of my past. She don't care about me, she just wants some cash. I'm thinking, damn, girl, we used to be friends. How'd this shit become all about ends? Just a little bit every now and then. Goddamn, girl, we used to be friends. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Do you think about it? asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan halkani waa labada youtube wada jir ah Jindi Media iyo youtube-ka walaalaha Jarmalka anigana waa Master Maluuda maqaamkan qurxan iyo barnaamij xiiso leh ayaa maanta ugu tala galnay intayna barnaamijkeena aanan guda galin aad ayaan idinka mahad celinayaa maqaamkii darajada sare aan gaarsiiseen subscribe-kiina waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inta dhiman inaad sii wadi doontiin ru'aantii waa ku farxay hawsha qabateen subscribe-ka iyo position kana gaarsiiseen waa position aad ugu farxanay maanta waxa marti inoogu ah barnaamijkeena dhalinta oo fisbaadan iyagoo halkaan diyaar ugu ah in yaani barnaamij xiiso leh ee idinka soo muujiyaan barnaamijkeena maanta wuxuu ahaanayaa mid taxana ah barnaamijkeena wuxuu ka koobnaa doona su'aalo oo la isweydiinayo su'aalahaas oo ka kooban ilaa 10 su'aalood sidoo kale barnaamijyo kale ayaa jiro oo hadda micnaa inaa sheego marow inaa hordhaco marow kadisa marka daawadayaal insha Allah taala haddana waxaynu bilaawi doonaa barnaamijkeeni xiisaha lahaa barnaamijkaas oo ka koobnaa doono su'aalo 10 su'aalood qofka ugu horeeyay barnaamijkan ee su'aalaha ay weydiin doono way bilaawatay barnaamijkeeni ayaa haddana si rasmi ah inuu bilaawo doono waxa su'aalaha ay weydiin doona oo qofka ugu horeeyo yaani fursad aan sii doono waa Master Cabdifataax Faaya Aadan ku soo dhaw waan dhaw xisaan horeba u sheegay magacaygana mar hore halkan ka sheegay marka waxa la sugayaaba waa Maluuda adiga iyo waxaad wadid su'aalaha ee kulli waxay ka koobnaanaysaa hore u sheegay damaraad ku celiyo 10 su'aalood su'aasha ugu horeysa Cabdifataax ku weydiinay waxay tahay xagee aad ku dhalatay oo wax aad ku soo baratay wallaahi anigu waxaan ahay hortii dhowr meelood wax baan ku soo bartay laba meelood laakiin waxa ku dhashay meel waqooyiga ka xigta Hargeysa oo la yiraahdo Baligubadle gobolka Hawd ninkii garanaya Hargeysa ayaa waxbarashadeeda inta badan ku soo qaatay Ethiopia laftigeeda qayb baan ku soo qaatay waxbarashadeeda markaa walaalka waa gartay maxaa aad jeceshahay يعني maxaa jeceshahay wallahi wax la jeclaado horta waxa ugu fiican nabad wax ka fiican oo la jeclaada ma jiro
su-aasha nabad baan ku jeysan lahaa. nabadaa jeceshahay haa nabad ayaa jeceshahay maxaad necabtaa marka adduunka waxaan ugu necebahay beenta. okay beenta ayaad ugu necabtahay waa gartay su-aasha afraad aan u gudbaynaa maxaa kugu naxdin badan yah maxaa kugu naxdin badnaa noloshaada calaashaan maxaa kuugu naxdin badnaa oo arag wallaahi waxaa iigu naxdin badan markaan arko qof la dulmiyayo oo yacni dulmi meelu ka socdo oo qof dulmi lagu wado markaan arko waxyaabahaasaan ka naxaa saaxib. maxaa kuugu farxad badnaa noloshaada noloshaada maxaa kuugu farxad badnaa wallaahi waxay igu farxad badnayd maalinkii xagga faamiliga layga qaabilay yacni duqdi maalinkay qaabishay iyo maalinkai curadaydu ii dhalatay labada maalmood baa iga farxad badnayd calaashaan maalinta aa guursatay lay qaabilay dee okay qaabilaante waxa u aqaana aniga qof caadi oo baahan oo system loo sameeyo la qaabilo qaxootiga waa lay qaabilay talaftigeeda hadii layga diidi lahaa miyaan luqadda familka weyn fanaankee ama fanaanadee aad taageertaa su-aasha lixaad fanaankee ama fanaanadee baad taageertaa ma kuwii horaa ka dhigaa markaa mise kuwii dambe waxaa jecesha adiga allaahuma salli calaa maxamed okay kuwii hore haddaan idhaahdo fanaanka xasan aadan layidhahdo fanaanaan ku doorsado waan waayey kuwii dambe haddii la yidhaahdana nimcaan hilaac inanka layidhaha inaanaan ku doorsado waan waayey adigoo ka dhawaajiyo legend xasan aadan samatar iyo nimcaan hilaac fadlan micnaha heese oo labadaas fanaan ma ka xasuustaa heese ka mid ah xasan aadan samatar iyo nimcaan hilaac hal hees ilaa laba hees markay ugu yartaa kadis taasi su-aalaha kuma jirin isku dayaya cishaduu ilaahay xirka taagay dubli ciidana ka dhigay gogol webiyada cartamayo cidhifyada badkaga xidh iyo buuraha culud intaasaa ku diinaya waaw wallaahi saaxib heesihii hore waaye heestaas xasan aadan samatar waa nin culus waxa waaye hees aad u macaanay ahayd kulley nimcaan haddaa asna mismays nimcaan hilaac okay waan gartay nimcaan hilaac waqtigu dee wixii cusub caalamkaa jecel caalamkaa jecel tuudamisaa kuus yaa waqtigu beri buu adkaa hadduuse barwaaqa dhalay waqtigu beri buu adkaa hadduuse barwaaqa dhale iga qabo waa mahadsantahay haatan iminka waxaa soo gaarnay su-aashii toddobaad aan weydiinayna cabdifataax barnaamijkeena su-aalihii micnaha weli barta kaga jirnaa marka su-aashii toddobaad waxay tahay youtubarkee aad saa'id ugu xiran tahay haddii aan kugu celiyey su-aashii toddobaad youtubarkee aad saa'id ugu xiran tahay cabdifataax fooya wallaahi horta wax kasta xaqiiqadoo la sheegaa wax ka fiican ma lahan horta youtubarada iskuma fiicnin laakiin haddaan xaqiiqatan ka hadlo youtubeka keliya ee sabskribku ii saaran yahay gambaleelka aan furto commentina aan ka dhiibto waa youtubeka walaalaha jarmalka waa markaan xaqiiqatan ka hadlayo markaa walaal jawaabteyda haddii aynu nahay bahda walaalaha jarmalka ah maqaamka iyo heerkaana gaarsiisadii aada ugu faraxsannahay waana kaaga mahad celinaynaa 100%. okay su-aasha sideedaad cabdifataax laba le kuu dhiman hanixiniya way dhammaanweyn su-aalehe maxaa nugula talinaysaa marka maxaa nugula talinaysaa ra'yi wallaahi su-aashani waa su-aal aad iyo aad u muhiima maluudhoy talo waxaan idin siin lahaa niyow adduunkan la joogo horta hadda waxa weeyaan waxa kusoo batay dadka xigta oo horumarkooda neceb oo dib ku jiidaya oo hadimooyin ku geysanaya oo isku dayaya tallaabadaad qaadaba inay tallaabo kale daba dhigaan waxaad odhan lahaa horu socda cadowgiina ha u jabina halkaa maanta joogtaan meel ka sarraysaan idiin rajaynayaa ha ka caajisaan leeyahay haddii jarmalka la eegana run ahaantii waxaad tihiin dhallinyarada keliya tee yacni dhaqdhaqaaqooda aad dee isha soo jiidanayso markaa waxaad odhan lahaa horu socda shaqo fiican baa haysa walaal
wala aleele waa runta hawshan anaga aawadno ma ahan hool aad u sahlan waxaa galaya juhdi badan haweene badan lagu dhafraya waxa waaye anaga ayaa isku xilqaanay maqaamka social media ama baraha bulshada ee Jarmalka in yaani waxyaabo badan oo qaladaad badan ka jira dalka inaa xalino ka Soomaali ahaan baraha bulshada ee Jarmalka haatan waxa soo gaarnay su'aashii sagaalaad yaa jeclaan lahayd inuu ku marti qaado marka laga reebo familkaadi yaa jeclaan lahayd inuu ku marti qaado marka laga reebo familkaaga yaa jeclaan lahayd inuu ku marti qaado marka laga reebo dhammaan familkayga oo isku duuban wallahi waa su'aal ajaayib ah asxaabta wallahi waxa jeclaan lahaa ninkan inuu marti qaado garabkaaga fadhiya Cabdilaahi Qaam ma sha Allah insha Allah suugiya maalin gurigiisa ay ugu marti qaado oo dumaashiyo ay marti qaado ما دماشية كرني صادوني سوى حكريس كاقول لكن قولي جيسان شعلا إنا شاهي وكري كرا شاهي وكري كرا حتى كريم لو أقرأ هذه جوابتي مالي واحد شعلا قولي جيسان كم ارتقاضي إن شاء الله وأنا سوقي يلا لا يقرسي وما سنتاي كابتن اوكي هذا waxaa soo gaarnay su'aasha ugu dambeysay ee dhankaaga macnaha way ka dhamaatay su'aalaha adiga ma sha Allah lacala hadii aad fanaan noqotid adiga Cabdifataaxan fanaanadee ayaa jeclaan lahayd inaad la heestid haya no su'aalaha midba mid ka sii dambeysay way ka sii magaranaysaa yaa badantay horti ilaahay fanaaniga ma dhigo ma rabo inaan fanaan noqdo laakiin lacala haddaan fanaan noqon lahaa fanaanadan la soo heesi lahaa haya odaybaa bad galay baan maqli jiray يا وسؤالي قدام بيسي سما سؤالي قدام بيسي ما قرحنا يا مركز صاحب قدس كتلنا يا كين جامع وريا رق صدح خفا كين جامع كين جامع حقيقة وحكى لكم الدوران لكن وحويا مركز داوتيد وقفك كلية تماركتي شح ذا مكرنا يسوي حوجا اوكي كين جامع waxa aan xitaa waa taageeraa waxa way maraq digaag iyo basashi iyo kabsashi ay u kicisa aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa sida Cabdifataax aad ayuu u mahadsan yahay Cabdifataax Faaya sida uu jawaabay 10 su'aalood haddana waxa way barnaamijka hore ayaan u sii soconaynaa waqti xaadirkan waxa geeskiisa soo fadhiistay si yaani barnaamijka uu sii wado Xamse ku soo dhawaadna واندوها صاحب ديار اوتا امرينا سؤالهنا طبعا ورقدان كو فرها marka خير الله خير ان شاء الله دي اوكي حمزه سؤال ugu horeys aan ku weydiina waxay tahay xagee aad ku dhalatay oo waxa ku soo baratay والله waa su'aal muhiim ah aniga meelo badan baan wax ku soo kala duwan baan ku soo bartay laakiin waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Dagago ka tirsan Soomaalida Itoobiya ninkii yaqaan gobolka Shaneele gobolka City loo yaqaan waxbarashadeeda dugsi hoose waxaan ku soo dhigtay magaalada Harad dugsi dhexe magaalada Jigjiga inta kalena magaalada wadanka Germany waa kaas waa ma saddex su'aasha labaad Xamza hada ku weydiyo maxaad dunida ugu jeceshahay waxaan dunida ugu jeclahay farxadda waa gartay maxaadna ugu nacabtaa wallaahi runta haddii aan ka hadlo waxaan necbahay oon hadda soo qaban karo ma garanayo balwadda Liibiya saxaraha wax le warma iloobi meesha Soomaaliya Liibiya mid la soo maray laakiin hore looga sii socday Liibiya taasoo kala laba nic karo ma aan soo mar laakiin dadka igu sheegaa maqlaha way dib badan tahay waxaas okay maxaa kugu farxad badnaa Xamse والله انت جيرو waxay igu farxad badnaa sanadka hor 2019 mar aan aaday wadankii aan 6 sano kadib waalidadeeda la kulmay adduunka taas ay igu farxad badnayd waliba halkan lagu soo koobi karin taas farxad ما شاء الله سفيعان lagu soo dhaweeyay Yurub ka imaada ta fadhiga laga kacay Soomaal oo hina isqaban kari waaya xataa marka okay Xamse da u gudbo su'aash lixaad fanaankee ama fanaanadee taageertaa والله أنا فنان نقدم تشعلي هذانا فنانين تدم وان شعلها دي دان لقى إيجو حسوا
isku bah baan nahay marka fanaan aan soo qabto hal iyo laba kuma soo koobi kara laakiin fanaanka aan codkiisa aad u taageero heesihiisina inta badan aniga ay si gaar ay taabtaan maxamed biki waaw maxamed biki adigoo mahadsan hal hees micnaha qacman ugu sii kartaa biki mise ku soo laabnaa wallaahi heesaa inta badan anigu labada erey horeysa ka xafidaa inta kale waan ku ciyaaraa laakiin waa isku dayaa marka hal iyo qayrka kama waayane qaaradahe cadda qarqarada wadnaha qabsado qalbiga magacaagii baan ku qore qalfoof ma tihide balqiirooyo anoon ku qasbay wuxuun qiraye inta kale igu laaba marka maska maya ma intaasaa nagu filan maasha allah waa isdhiftay mar kale wax kale kaama rabnaba su-aasha toddobaad youtuberkee aad saa'id ugu xidhan tahay wallaahi aniga youtubeka haddii gala heesale ka dhagaystaa inta badan wax saama uga sii daawado youtubekii ugu horreeyay subscribe u saaro waxayd walaalaha jarmalka aadaan u taageeraa waxaana leeyahay wallaahi hore u socda intaa iyo inka badanba u qabto dad anigoo ku hadlaya afka youtubeka walaalaha jarmalka sida hagar la'aaneed aan ugu taageertay run ahaantii aad ayaan kaaga mahad celinaynaa mahadsanid maxaa nagula talinaysaa waxay kula talinaa intaa iyo inka badan inaad dadaal sii gaadhsiis aad soo wadiin xoogaa ma ogtahay hawlo noocan oo kale markii aad wadiin waxaa muhiima samirka das geht auch nicht heute auf morgen ka waqti u baahan tahay xoogaa waa inaad u samirtiin halkaa iyo meel ka dheer waad gaari doontiin insha allah inkastoo aad jeclayn xoogaa luqadda jarmalka inteena badan dadaan fahmaynin waynagu xiran yihiin mararka qaar haddii inta yar aad dhahdo inaad noo turjuntid igana raali noqo wallaahi waa dhibkaasto inta u badan dadka meelahan jooga luqad kale ku hadlo soomaaliga ahayn waxaan ka waday yacni samiray u baahan tahay moogtahay maanta lama dhihi kara yacni hal mar ama hal maalin kuma wada qaban karti wixii moogta marka bil sanad hadhihin inka badan in loo samro waa maalinkayga imaanaysa marka maanta berri ma noqon kartaa maanta berri ma noqon kartaa waa run wallaahi su-aasha sagaalaad yaa jeclaan laheyd inuu ku marti qaado waxaa ku dhima hal xabo yaa jeclaan laheyd inuu ku marti qaado marka laga reebo familkaadi wallaahi familkayga marka laga reebo martiqaadka aadan iskaga jeclay waliba hilibkaanu jeclay ciddii martiqaada waa soo dhaweynaya cid gaara laakiin saanu jeclay ma jirta inay martiqaado su-aasha ugu dambeysa ee dhankaaga xamso lacalla haddii aad fanaan noqotid ma fahante ama fanaanad igaraa lahaada waa qaldee lacalla haddii aad fanaan noqotid fanaanadee ayaa jeclaan laheyd inaad la heesto runtii qorshaha kuma jirta ina fanaan noqdo laakiin haddii lacalla aan fanaan noqon lahaa waxaan la heesi lahaa welibaan aad u jeclaa inaan la soo heeso fanaanada xamda queen oo hadda fangaalan ku jira fartun barbalaarkan ha ka reebniyadana inuu balbalaarka soo wadan moodayay markuu lahaa waxaan leeyis rabaa balbalaarka codkeeda wuxuu u egyahay dacas dhulka lagu tumay camal waa mahadsantahay xamso barnaamijkeena ayaa hore usii wadi doonaa bismillahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsan tahay saaxiibkay maluuda meesha naga daawanaysaan waa jinda media iyo walaalaha jarmalka oo sii wada jira halkaan kuu soo tubinaya halkaan dhalinyaro badan baa ku fadhinaa maanta waxaa iskugu nimi inaan halkaa su-aal isdhaafsanno oo aan isku baranno oo waqti aan wada qaadno inkastoo dadka badan is arago aan joogno waddan oo mashquulkiisu aad u badan yahay marka insha allah su-aalahayga waxaan weydiin doonaa ku bilaabi doonaa saaxiibka cabdiraxmaan 10 su-aalood baa ku qoran ku weydiin doonaa diyaar u tahay sooma aad u weyn waa mahadsantahay jidha diyaar ahay soo dhawaaw ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa su-aasheeda koowaad waxay ku oranaysaa xaggee aad ku dhalatay oo wax ku soo baratay jidho waxaan ku dhashtay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaqshid xaafadda jungal waxaan wax ku bartay iskool la yiraahdo dugsigayga hoose ee ibnu quseyma dugsigayga dhexe iyo sarana waxaan ku soo qaatay iskool la yiraahdo uxud waa mahadsantahay maasha allah waa mahadsantahay waxaan u nimid su-aasheeda labaad maxaad jeceshahay jidho maxaad jeceshahay waxaa u kala qaadaya aniga labo haddii wax noqoto iyo haddii dad noqoto
dad hadday noqoto waxaa ugu jeclaa hooyaday macaan hooyo xaawo xasan muuse intaa ka salaamaya hooyo macaan maasha allah kula salaamayna waxaan u malaynayaa inay ku xiran tahay labada janaal waa idinka fiirsataa insha allah hooyo aadaan kugu xiisay waxaa kaleeto aan jeclahay familkayga oo dhan xaaskayga caruurteyda kulli haddii la dhaho maxaad jeceshahay oo kaleeto oo micnaha oo shay camal ah waxaan adduunku jeclahay nabadda maasha allah aad iyo aad waa laba waxyaalada aad iyo aad u muhiim ah okay waxaan u nimi su-aasheeda saddexaad maxaa ugu necab tahay jiidho waxaan aniga adduunka ugu necbahay laba shay mid waxa waaye beenta iyo ceebta aad iyo aad waa laba ayaguna in la nibcaada aad iyo aad u fiican tahay waxaa u nimid su-aasheeda afraad maxaa ugu naxdin badnaa noloshaada inta joogtay maxaa kugu naxdin badnaa jiidho aad bay ii taabatay su-aasha marka ay weydiisay waxaa igu naxdin badnaa maalintii aabbee dhintay allah u naxariisto jannada firdaws allah ka waraabiy maalinta maalin iiga naxdin badneed male jarmalkan jooga anoo shaqaynayo maalinta la ii soo sheegay marka maalintaas ay igu naxdin badneed aabbee waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu duceynaya inuu jannada ilaahay ka waraabiyo allah u naxariisto asaga inta muslimiina insha allah aad iyo aad baa u naxdin badan tahay aad baa umahadsanta waa ka xunna inaan kusoo xasuusino naxdintaas ka raaligelinayna maxaa kugu farxad badnaa waxaa igu farxad badnaa su-aashii hore su-aal geegan ah oo micnaha kasoo horjeeda hadda ay weydiisay maalintii aan haantay xaaskayga qaaliga Sucaada Xuseen halkaana ka salaamaya waxa maalinta labaad oo igu sii farxad badneed maalinta labaad oo igu sii farxad badneed waa maalintii curadeeda Nafiisa dhalatay aad baa idin jeclaa dhamaantii caruurteeda dhamaan maasha allah aad iyo aad okay su-aasheeda lixaad waxay koranaysaa fanaankee ama fanaanadee taageertaa fanaaniinta hore iyo fanaaniinta dambe labada hadda u kala qaad horta fanaaniinta Soomaaliyeed kulli waan taageeraa aad baan u wada salaamayaa fanaaniinta horeeto waxaan ka taageeraa Xasan Samatar iyo Qadra Daayircige kuwii dambena waxaan ka taageeraa Maxamed Saciid BK iyo Farxi Fiska iyo Nasteexinda maasha allah shanta fanaan oo sheegtay mid kamid ah hal hees oo leeyahay qacam nooga siin kartaa niyo midda ugu xun waxa waaye heesaa ma xifdiyo waa dhigaysaa dhimale waa ka gudbinaa su-aasha toddobaad waxay ku oranaysaa youtuberkee aad saaid ugu xiran tahay niyo youtuberka saaid ugu xirnaay waxaana nin la yiraahdo Asad Xaajiyo waa yar aad u qalbi fiican yarkaas mar walba uu aad ugu xirnaa video soo dhig waa fiirsada waa yar dhibaato badan Soomaaliya ka soo gaartay taariikhdiisa hore oo la socda laakiin waa uma joojinin insha Allah waxa waaye waa nin taalaanti waa nin hore u socdo halkaan baan ka salaamaya waxaan rajeynayaa maalmaha kamid in arkaso laguisa ku socdo Asad Xaajiyo walaalkay aad baan ku salaamayaa da video waan taawato insha Allah ما شاء الله أسد حاجي وقرنا ونن يرى وإيش كعن كحق درن أي حمنيس كلا نتاشي إلهي عفات سريع عصية ونن يرى أدي أدو قلب في عن أي سنة وحبا أقولي من إيش بحي لو جستي هرو السعودية وحن كلنا هرو السعودية مش عك السيود إن شاء الله عفات ورانا كورتشينا أوكي سؤال شيء صدق هذا حكوا سامحنا وقولت للهاي waxaan kula talin lahaa jiinda meediya iyo walaalaha Jarmalka horta mar mid ugu horeys xiriirka alle inaa ku xirnaataan marka labaad wax balwad la dhaho sheeg horta malihidii waa ku ogaay laakiin balwada dhan ka dheeraada dadka iyo macnaha dadka la ila kulligood saaxiib wanaagsan yeelada xaasinimada iska ilaaliya hore u socda mideeda kale youtuberka waxa jiro waxyaabo sheeg loogu talagalay qaar dadka qaarna waxay u isticmaalaan dhanka xun adiga laakiin dhanka wanaagsan ka isticmaala mideeda kale waxaan idin kula talin lahaa youtuberada waxyaabaha xunka soo micnaha ay sheeg soo daayo xataa reaction ka soo bixinaa insha Allah dad badan baa idinku micnaha idinku soo cadow badan baa yeelan doontaan ha u jawaabinaa hore u socda خلاص هذه كرة الله سود هذا هذه ما شاء الله ودردان هذه دحل قلوة وأنا شيء وأنا كأقبلني وأنا يلد النادي لهيدمو راح أسوق عن سؤال شيء سجالات راح أكون سيا شعلان لهيد إنه كمرتقاده هذه لقى ريبو فاميل كاي هذه لقى ريبو مرة حاسك جلسوا بودرني marka hadii familkii laga reebo waxa jeclaan lahaa dumaashidii aadna hena oo cunto aad u badan oo qurux badan oo u macaan diyaarso oo malaagan aad u jeclaa malaaga aad qurux badan sameeyso waa salaamaya dumaashidii aadna hena iyo walaalkay Saciid Saxaaf Maxamed Saciid Saxaaf ما شاء الله أنا صحاف أدى وقرنا لو يوتيوبر عانوا ويا إن شاء الله وين ودع سود وثام ملايين سنتك واحد رجلا ماليزيا هذا لكن كورونا درتيس وقف بعضي هذه waxaan u soo aashay ugu dambeysay waa su'aashii 10aad
waxaa ku dhanaysaa lacalla haddaad fanaan noqon lahayd fanaanadii la soo heeshi lahayd horta jidhow aniga famil xoogaa wadaadaan ka dhashtay lacalla haddee fanaan noqon lahaa waxaa la heesi lahaa nastaxiindho maasha allah waa fanaanad qaali ah ayana waxaa rajeynaya inay jeclaan lahayd kula heesto insha allah way dhammaadeen 10 su'aalood ugu dambeeyay aad baa mahadsantahay Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. It's not the first time we've gone through